in ka badan 120 askari ayaa ka soo goostay ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira ciidamada Somaliland ayaa si muyal miisaan loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Xaysimo soo dhaweynta oo ka qayb ahaayeen saraakiisha ciidamada qaranka ee gobolka Xaysimo ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay sarkaalkii watay ciidanka soo goostay Cabdisalaan Yuusuf Tigaale aad iyo aad baan xafladan ay noogu soo dhaweeyeen oo nagu qaabileen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waana filaynay in sida naloo soo dhaweeyo oo nala qaabilo mid aan filaynay weeye sababta keentay inaan ka soo baxno jiidii aan ku jirnay ee fulinta Godqaboobe beelaha isugu yimaadeen ma jirteen sababta keentay inaan ka soo baxno markii aan tashi la sameynay saraakiishayada odayaashii deegaankayaga madaxda dawladda dhexe noogu jirta sida maxaan ku dhahdaa ilaa barasaabka wasiirka gaasatan wasiirka biyaha gudoomiyaha baarlamaanka maxaan ku dhahdaa markay tashi ay nala sameeyeen aan la sameynay juhdi fara badan ay nagu magaranaysa sameeyeen inaan ka soo baxno waanu aqbalaad baanu ku sameynay waanuna yeelay oo waana kan maanta waanu joognaa guryahayagii iyo jiidayadii baanu joognaa iyadaanu ku ciidamoobaynaa inaanu ciidan ka noqono taas markaan waxa weeyaan ka gudbo waxaan u baahanahay annagu maadaama aan fulinay waajibaadkiina la ka rabay aanu nimi tirada ciidanka aanu ku soo gudubnay waxa weeye waan jiida kaga soo baxnay 118 ciidanku uu kala maqan yahay oo hal baabuur baanu ku soo gudubnay oo noo qaadi waayay dhiiri dartiis baanu soo gudboynay sidaa darteed baa markaa waxa keentay gaariga ay intuu noola soo gudbay inaanu nimaadno xarunteennii Taleex iyadaanu hadeer magaranaysa hadii ku suganahay joognaa ciidanku kalena wuxuu ku maqan yahay fariisinka markii hore aanu jiida ka soo galay sidaa darteed waxaanu u baahanahay markaa dawladda maadaama aanu ciidan qaran aanu ku soo biirnay oo aanu ciidankii qaranka u nimi oo aanu dawladdeedii ku soo biirnay waxaan u baahanahay wax qabad buuxa saraakiisha ciidamada qaranka ayaa halkaasi ugu soo dhaweeyay ciidankaasi liida ayay u gudbaayeen gawaarida xamuulka ay saarnaayeen kuwa daban insha Allah waan sugaynaa inay soo gaaraan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland inuu ciidanka sida aan u qaramaysanahay in loo qaramiyo xuquuqdooda loo siiyo ayaan madaxweynaha ka codsanaynaa taliyaha ciidanka Nuux Ismaaciil Taani janaka ciidanka isagana siliga mar taliyaha ka codsanaynaa ciidankaas way soo gaareen anana aad iyo aad baan u soo dhaweynay wayna maqleen oo runtii xaaladaha meesha ka jira iyo beelahan maartay halkan ciidamada halkan leeyahay Puntland waa ciidan waxa weeye waa staafkii hebel waa madaxtooyadii waa beelash waa ciidanka reer hebel waa beelash yimi weeye hasaat ciidan dawladeed oo meesha ka jira ma jiro waxa weeye Puntland halkan waxa yaala Taleex waxa shir ka geysteen waa loogiya rag la fiisi baa yaala aan wali googoyn marka ugu horeysa ciidanka waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka labaadna waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa ciidanka taliyaha ciidanka qaranka Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani marka saddexaadna waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa ciidanka saraakiisha sida jaranjarada oo kala sarreysa ciidanka qaranka ciidankana waxaan leenahay soo dhawaada maamulka iyo saraakiisha iyo madaxdeedana waxaan leenahay loo dadaalo oo ciidankan waajibkiisa hal la mariyo ragga kale xogaa rakiigu yar galay ama arrimaha Puntland waxaan kaga hadlayaa Puntland wax far badan bay dadka iyo dalka baabiisay iyada dayacday meel xun iyada wax dhigtay wixii lagaga tago iyo wixii loo geystana anigu waxaan aaminsanahay xaq baa loogu leeyahay degmadana hadda magaalada aan joogno gobolka ah degmada Taleex Puntland agtay marisay way leysay dhaawac iyo dhimasho iyo guryo dumay way ku samaysay ilaa hadeer waxay u qabatay inama jirto xaqiina way diidan tahay way haysaa xaqana ma hayn doonto marka run sheego hadii ayan xaq bixin ma hayn doonaan xaqa waxaanu leenahay marka baabiintii hore noo tahay dib u dambaysay cidii u dhageysan mayso waxa dagaalka aad maamulaysan xaq maaha hol TV